Safarkan waa mid ku saabsan dal dhaca koonfurta galbeed ee qaaradda gabowday ee Yurub, gaar ahaan jasiirad lamoodka Iberia. Waa dalka Portugal ama Jamhuuriyadda Portugal oo ah dal ku fadhiya taariikh sal weyn iyo arrimo gaar ah oo uu kaga duwan yahay dalalka kale ee Yurub la dhaca. Haddaba ku soo dhawaada xaqiiqooyinka xulka ah ee ku saabsan dalka uu ka soo jeedo laacibka kubadda cagta ee 5 jeer noqday xiddiga ugu fiican caalamka. dalkan ay buuruhu iyo webiyadu ku badan yihiin waxaa galbeed iyo koonfurba kaga beegan badweynta Atlantic, halka bariga iyo waqooyigana uu ka xigo dalka Spain. Waxaa jiraan laba mandiqadood oo maamul u gaar leh kuwaasoo kala ah Azores oo ah jasiirado yaryar oo xiriirsan iyo Madeira oo sidoo kalena ah jasiirado yaryar. Laakiin Madeira waxay aad ugu dhowdahay dalka Morocco marka la eego masaafada ay u jirto. Sidaas oo ay tahayna waxay hoos tagtaa dowladda Portugal. Bedka guud ee Portugal waa wax ka badan 92,000 kiiloomitir isku wareega, wuxuuna noqday dalka 109aad ee ugu dhulka weyn caalamka. Dalkan waxaa soo xukumeen awoodo kala duwan, waana mid dhaca dhulka Andalus oo ay muslimiintu muddada dheer xukumayeen, balse 1139kii waxaa Portugal qabsaday Afonso Henriques oo noqday boqorkii ugu horeeyay ee boqortooyadii Portugal. waxayna Portugal nidaamka boqortooyo ku hoos jirtay muddo ku dhow 800 sano. 1910kii ayuu dhacay kacdoonkii looga guuleystay boqortooyada, waxayna guushu raacday dhanka jamhuuriga. ilaa maantana nidaamka xukun ee Portugal waa mid jamhuuri ah. Portugal waxay safka hore kaga jirtay sahminta ay sameynayeen reer Yurub, gaar ahaan intii u dhaxaysay qarnigii 15aad ilaa qarnigii 16aad. Ferdinand Magellan oo ah sahmiye Portugiis ah ayaana loo aqoonsan yahay in uu yahay sahmiyihii ugu horeeyay ee caalamka ku wareega. Sidoo kale waxaa Portugal ka soo jeeda sahmiyihii lagu magacaabayay Vasco da Gama oo noqday shaqsigii ugu horeeyay ee sahmiyay wadada badda ee isku xirta Yurub iyo India. waxaa jirta buundo ama bridge la dhaho Vasco da Gama oo sahmiyahan lagu magacaabay, waana mid laga helo Portugal, waxaana xusid mudan inuu yahay bridge-ka ugu dheer guud ahaan Yurub. sidoo kale waxaa jiraan sahmiyaal kale oo caan ah isla markaana ka soo jeedaan Portugal sida Bartolomeu Dias iyo Álvares Cabral, kuwaasoo sahmiyeen Brazil iyo qaybo ka mid ah qaaradda Afrika. Portugal waxay mar ahayd imbraadoriyad xooggan oo awoodeedu dunida ku faafsan tahay, waxayna jirtay 1415kii ilaa 1999kii, taasoo ka dhigan inay tahay imbraadoriyadda ugu cimriga dheer marka la eego kuwii dambe. raadadka taariikheed ee mugdiga ah oo ay imbraadoriyaddan leedahayna waxaa ka mid ah dadka ay galbeedka Afrika ka qaadi jirtay si loo adoonsado. sidoo kale imbraadoriyaddan waa tii u hiilinaysay Xabashida kolkii ay ishayeen halyeyga Soomaaliyeed ee Axmed Gurey, wuxuuna Axmed Gurey ka difaacay qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam isbahaysigii Xabashida iyo Portugiiska, kuwaasoo doonayay inay qabsadaan magaalada Madiina, sidoo kalena qaataan qabriga Nabiga si ay ugu gorgortamaan magaalada Qudus oo ay muslimiintu haysteen. tirada dadka dalkan waa 10 milyan, laakiin luuqadda Portugiiska waxaa ku hadlaan dad ka badan 240 milyan oo daafaha dunida ku kala nool, gaar ahaan Brazil iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika sida Angola. waxayna luuqadda Portugiiska luuqad rasmi ah u tahay 10 waddan. qurba joogta ugu badan ee ka soo jeeda Portugalna waxay ku sugan yihiin dalka Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro. boqolkiiba 96 oo dadka dalkan ah waa Portugiis, halka boqolkiiba 4na yihiin dad meelo kala duwan ka soo jeeda. boqolkiiba 81 ayaana ah Kirishtaan weliba raacsan kaniisadda Kaatooliga. caasimadda dalkan ee Lisbon waa mid ka qadiimsan magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga. Lisbon ayaana qadiimsan 4 qarni. marka la eegana caasimadaha dalalka dhaca qaaradda Yurub, Lisbon waa caasimadda labaad ee ugu qadiimsan, waxaana ka qadiimsan oo kaliya Athens oo ah caasimadda Giriigga. Portugal waxay ka mid tahay dowladihii ugu horeeyay ee mamnuucay daldalaadda ama toogashada. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka galbeedka ee xorriyadda siiya waxyaabaha maanka dooriya, waxaana sharci ka ah lahaanshaha marijuana, cocaine iyo xitaa heroin, laakiin 2 garam haddii ay ka bataan waa mamnuuc. sidoo kale in la iibiyo waa sharci daro. Portugal waxay fadhisaa kaalinta 9aad marka la eego dalalka caalamiyeysan. sidoo kale Portugal waa dalka 3aad ee ugu nabadgelyada iyo deganaanshaha badan caalamka.
laakiin marka la eego dhanka tayada nolosha wuxuu galayaa kaalinta 19aad waana mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya dalalka ku midaysan midowga Yurub marka la eego dakhliga qofka soo gala waxaana laga helaa 15 goobood oo taariikhi ah UNESCO-na aqoonsan tahay waana dalka 10aad ee dalxiisayaasha ugu badan booqdaan marka la eego dalalka dhaca Yurub laakiin dalka 17aad ayuu noqonayaa marka la eego dalalka caalamka ee dalxiisayaasha ugu badan booqdaan